بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي يدقل كيني أين كل هين مريكت يوتيوب اسمع السيد فضلنا تذكر عصبت هاي channel كوكوس ودو سبسكرايب بها كملا كم في فيديو قنا لجراد هذا هرون ولا شوكتين أو أدبض ما هتصنت هاي بس شيء برواقية برادة الدنيا نمع ذي رجينا يا آخرنا channel الفردوس الله هنوع عسوم ودمان تبا وفدي channel الفردوس الله هنغيره وبرنامجكeenii aynu ku dhex jirnay muuqaaladii kala duwanaa aynu ugu magac darnay waxyaabaha aynu soo kordhay bariyahan dambe baraha bulshada khaasatan iyo nolosheena caadiga ahba oo marba dacal aynu ka eegaynay kolley muuqaaladii hore maanta muuqaal ka yara duwan ayaan halkan doonaya inaan ku duubo waxaan si gaar ah maanta ula hadlayaa akhyaarta asxaabta youtuberada ah rag iyo dumarba leh ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laba qodob ayaan doonaya inaan yar ku yara baraarujiyo kulley waxa wanaagsan qofku waxa uu arko inuu bal u gudbiyo walaalkii inuu yiraahdo waxaan jeclaan lahaa inaad waxa ka bedesho ama waxa ku soo kordhiso kulley aad baraha bulshada ugu dhex jiraayo waan daawadaa marka laba qodob ayaan doonayay inaan ku baraarujiyo akhyaarta maxay ahayd tole youtuberada ee Soomaaliyeed youtuberada ciidaas ay ka badan yihiin inta dee Soomaaliyeed ku hadlaysa luqadan hadee ku hadlaya fahmaysan labada qodob waxay yihiin kulley mid aad waa ugu dhex jiraan had iyo jeer leh oo marka ay soo galayaan iyo marka waxay soo gelinayaan iyo waxay ku hadlayaan inta badan wuxuu ku qotamaa oo maxay tahay sal iyo bees oo ah iyo barbilow diinta islaamka ay wanaagsan wuxuu ma si xoojin lahaa youtuberada waxa laga yaabaa intaas oo kun intaas oo boqol inay qaarkood malaayiin qof ku xidhan yihiin dadkaasi inay badidooda majority-gooda boqolkiiba 90 ama boqolkiiba boqol ay yihiin dad Soomaaliyeed dadka ku xidhan oo luqadii ay ku hadlayeen fahmayeen qof kale waxaan uu fahmi haynin iska dhageysan maayo iska daawan maayo qodobkan halka ugu soo gudbin lahaa marka waxa weeye bal waa diinteena sharafteeda milgaheeda haybadeeda ay leedahay iyo dhaqan wanaageeda ku muujiya barihiina bulshada oo kumanaan ka qof ee idinku xidhan akhyaari kumanaan ka qof ee idinku xidhan qof walba ay leeyihiin mid bay leeyihiin weyn bay leeyihiin waayeel bay leeyihiin wax galad bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin caruur bay leeyihiin soo koraysa qaar waxay leeyihiin jidkii waxooga ka yara weecsan qaar toos oo haysta qaar akhlaaqahiyan dhisan qaar wax ka dhiman yihiin marka sida idinku qudwo u ahaataan madrasadna u ahaataan iyo iskuul wax laga barto waa in aad waxyaabaad soo gelinaysaan marka soo gelinaysaan iyo dhaqankiina iyo waxa soo gelinaysaan bal laga dareemo inay diintu milge iyo sharaf iyo wanaag leedahay ay haybadii diintu naga muuqato marar khaas ah culimo soo gelisaan waxyaabo diinta wacdi gaar ah ku saabsan muxaadarooyin khaas ah idinku marka soo gelisaan marka si baxasaan intaad ku jirtaan oo dhanba inaad maxay ahayd holay diinta sharafteedii wanaageedii naga muuqdo laakiin qaar inaga mid ah waxa jira moodaa waxoogay inay u soo galeen oo kaliya ohun just hal lagu daawado oon ama aad fiyuusan ka heshid ama wixii kale adduun ahayd ee laga sii raacraacay faraguudkood meeshaas aad u gashido taasina inaan ficmayso adigoo taadaan iska wato wax Ilaahay meesha kaaga raashimo kala soo baxaya waa inay diinta wanaageeda sharafteeda iyo haybadeeda iyo dhaqankeena islaameed uu naga muuqdo oo aan dadkana ku waalino marka inaga deelayna arko wanaaga naga muuqdo ayay dadku diinta ku soo dhiiranayaan kuwa ay ka yara weecsanayno toosayaan wacdiga iyo waanadu markasta ay inuu jiraan barnaamijyada aynu soo gelinayno maxay tahay shaqaasan inuu soo gelino kuwan caadiga soo gelina haday reaction tahay iyo haday falcelin kale tahay iyo haday baraarujin guud tahay iyo haday wax la toosinayo tahay haday dad isaysto khilaafkood dhex geliso intaba mid walba waa inay milgihi sharaftii iyo kamaamkii diinta islaamka wanaagsan iyo dhaqankeena aad ku loogtaan ama aad raacisaan ama aad ku ladhaan qodobka kale labaad aan doonayo inaan walaalahayga youtuberada meel kasta joogaan rag iyo dumarba aan iyagana u gudbiyo waxa weeyaan xagga khilaafaadka iyaga dhexdooda ama dadka kale dhexdooda ama khilaafaadka iyagu arkaan ee dadka kale ka jecel waa saddex geesli waa shir saddex gees ma jirto Soomaaliya waa saddex gees bay leedahay oo youtuberada dhexdooda in iyaga ka yara dhex tolanto oo iyagu sira khilaafaan in qof youtuber ah iyo qof kale oo bulshada caadiga ama fanaan ha ahaado ama fanaanad ha ahaato ama abwaan ha ahaado ama hal awr kale ahaado in iyaga dhexdooda ka tolanto ay ka oogsato ama inay laba qof oo kale oo aan ahayn youtubero dhexdooda ka oogsato ay ka bilaabanto iyagu marka wax ka oranayaan saddex geesood waxaan oran lahaa marka aad qof isku dhacdaan waxa laga yaabaa qofka wax badan ba muddo soo wada joogteen waxyaabo badan ba kala haysteen marka laba qof isku dhaceen waxa arkaysaa iyagoo sira badan oo ay kala hayeen ama laba qof ay kala ogaayeen faafinayo bari bulshada ku faafinaya ama hadalla gif ah oo aan meeshii qaban haynin oo waxoogay xanaf leh oo jawrfal ka muuqdo isweydaarsanaya ama dadkan ay falaqeynayaan reaction-ka iyo falcelinta ka sameynayaan iyagoo isqabsaday si islaaxa ama si wanaagsan dhexdoodii aad moodo inaanay u yara dhexgeli haynin oo si eriye aan meeshii lahayn dhexgelinayaan
qodobkaas wuxuu leeyahay haddaad idinku youtuberro isqabsataan iyo hadda youtuber iyo qof la isqabsadaan iyo haddii laba qof oo kale oo aan youtuber ahayn ee dadka kale banaanka jooga isqabsadaan oo idinku waxay xillinaysaa dhex gelaysaan maxay ay toolay tihiin dad islaaxinaya dhexdooda in aad bal hadda waxaan aad maanta dee ku hadlayso wax maantana ku waxyeelaya ku wajaafaynaya berrina jiilkaaga markaa kusoo noqon doona oo dee halkaa wixii galay ka bixi maayaane bal inaad u fiirsato oo marka qofkan isku dhacdeen aad ka soo qaadin wixii idinka dhexeeyay oo dhanba habaan mansuura aad ka dhigin adduunyada inuu qiyaamaheedu kacay oo aanay dib sii jiri doonin bal inaad eegto wixii iga soo dhexeeyay waxaa idinka dhexayn doona khilaafka inuu iska dhammaan doona ama wasaas kula tegi doona hadda laba qof oo bilaanka kala galay ahaad dootaane waxay dhexdiina soo maray ee siro ahaa ee waxaad isku ogtiin ahaa ee ceebo qofkani lahaa ah ee dambiye iyo dunuub galay ahaa wixii aan soo fagino dee banaanka aan soo geynin ila walaaltinimadii may dhimanin oo may dhamaanin haddaad dadku isku dhacdeen islaamnimadooda may dhamaanin banaankan kala mari kartaan waana isku soo noqon kartaan intaa labada qodob ee baraarujinta ah waxaan kula hadlayaa walaalada youtuberada ah ee had iyo jeer bulshada aad u dhex jira youtuber qorayaan kusoo koobin baraha bulshada waxay ku dhex jiraan dhammaantiinba waa waano walaalkiin oo jecel qalbigiisa ka timi ma aha erayo iyo weero laydinku durayo oo laydinku dacninayo wax laydinkaga sheegayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu